Mustafa Maxamed Yunis Mustafa Waxdad oo kamid saraakiisha xisbiga kulmiye ayaa soo bandhigay tusaalaha warqadda lagu codeyn doono maalinta 13 November iyo godka uu yeelan doono xisbiga kulmiye ay ku codeyn doonaan taageerayaasha xisbiga kulmiye. inagu waxaanu nahay haddaynu xisbiga kulmiye halka dhaxaynu nahay dadweynaha shacbiga Soomaaliland ee reer kulmiye waxaanu ugu baaqaynaa inay ku muujiyaan calaamadda eges isku talaab ha qofba sidoo u yaqaan oo aan ka talaabin diilinta inta loogu tala galay aan ka talaabin inay ku muujiyaan ayaanu dadka ugu baaqaynaa waxaanu ugu baaqaynaa inay halka dhexe calaamadiyaan kulmiye halka dhexe ayuu maalinta doorashada ee 13 leeyahay sida waraaqda aad ka arki doontaan qofowna calaamadaada ha ka talaabinin inta loogu tala galay waraaqda si aanay cancel u noqon halka dhexe ayaanad calaamadinaysaa maalinta bisha 13 gaadho waxaan kale ugu baaqaynaa dhammaan gudoomiyaasha xisbiga degmooyinka guryaha meel kasta oo ay joogaan xisbigu qaybihiisa kala duwan in ay waraaqdan guri kasta ku dhajiyaan oo qof kasta door to door loo geeyo loo tuso qof waliba sidoo u codeynayo iyo halku calaamadinayo in la tusana waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye sidaas awgeed waxa weeyaan qofku waa inuu soo diyaar garoobaa waa inuu kaarkiisii baarbaaraa markuu gacanta ku qabto 13 la soo baxaa oo uu ku muujiyaa calaamadda iyada ah ee eges ama ha oo halkaas way bannaan tahay marka hore halkaas way bannaan tahay marka waraaqda lagu dhiibi doono laakiin marka aad imika aad calaamadinayso waa inaad calaamadaas oo kale aad ku qortaa oo calaamadaas ah taad ku guuleysanayso waana halka dhexe ayaynu ku naalaa sidaas awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa dadka kulmiye taageerayaasha kulmiye in arrinka u foojignaadaan oo arrinku foodkii buu gaaray waraaqdii 13 bay nagu soo aadane calaamadaas iyo halka la calaamadinayo la isu sheego lagu soo kalaho police stationka la calaamadiyo bartanka la calaamadiyo bartankaynu ku naalaa inagu oo la eegto magaca kulmiye iyo calaamadda kulmiye la eegto halka ka horeysay bannaan calaamadda lagu dhufto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.